jariiban waxay soo jirtay 100 sano ka hor waxay sii jiri doontaa intaan buunka la afufay wixii ka sokeeya intaa waxaa soo gaarsiiyay dadka maanta nool waxa xaq ka saaran yahay inay ayadan iyo ku mintidaan wixii lagu heshiiyeyna ilaaliyaan wixii dadka wuxuu noqon karana la dhexgeliyo waxa isdiidaya ma jiraan marna aniga iyo cid ila mid kama suurowdo inay odayaasha arki waayaan odayaashu haddaysan na garab taagnaadana suuragal ma ahaateen inaan maanta heerka Puntland ay isku tashi ka gaadhay ama ay wanaag ku gaartay haddaysan odayaashaas iyo wanaagga iyo isimada macnaha leh aysan haysan inay hooyadii federaalka noqoto suurtagal ma ahaateen waxa arintaa dhaliyana waa odayaal iyo waxgarad jariiban waa ka xaq jirtaa gobolka Mudug waxa ku dhaqan odayaal macna leh oo runtii kuwa ugu muhiimsan gobolkan Mudug waxgalkana u ah ogolaaday maanta mashaariicda iyo wanaagga iyo mashruuca triijiga ugu ballaaran Soomaali inuu ka hirgalo haddaysan taas iyagu dadka isku wadin oo aysan ayagu dadka ku dhex jirinna ma dhacdeen wixii hadda jira oo culaysa oo degmada ka soo noqdana waxaan rabnaa inaan insha Allah si hoose u xalino odayaashaan is aragno wiilashoodiina waa nahay dawladoodiina waa nahay waa ku mahadsan yihiin shaqada iyo garab istaaga gaarka ah arrimaha gargaarka oo dawladaha iyo hay'adaha caalamiga ka jira inaguma jiraan gargaarka shabaabka iyo shayaadiintu ay ku jiraan anigoon hadalkii adeer ku durayn shabaab dhiigooda iyo naftooda waa noo bannaan yihiin waxay xaq u leeyihiin hantidoodana in la dhaco ayagana la laayo oo aan lagu xabaalin qabuuraha dadka muslimiinta ah oo la geeyo qabuuraha khawaarijta xaqna uma laha sida qofka caadiga u dhinto in loo dilo ina cunada cuna marka xaraam bay naga tahay deegaanadeennana waxay leeyihiin ma imaan karaan qof iyaga ka mid ah oo raba fikirkaas takfiiriga ah oo xaraamta inaga inuu faafiyana inuu dhex noolaado dhammaanteen xaraam bay naga tahay waana ku mahadsantihiin inaad sidaa u dareentaan waxaa ku mahadsantihiin inaad ka warqabtaan xaaladaha duruufeed oo dalku ku jiro abaar ha ahaato ama wax kale ha ahaato golaha deegaanka iyo maamulkooda sharafta leh oo halkan ku sugan waxay ina gaarsiinayaan barnaamijka maanta macnaha weyn Puntland isku tijaabisay oo hal qof iyo hal cod oo xukuumadda madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni ay Puntland ka hirgelisay saddexda xisbi siyaasadeed ama urur siyaasadeed oo hadda jirta saddexda degmo doorasho oo Puntland ka dhacday waxay tusaale u tahay in qof walba oo muwaadin oo Puntland uu xaq u yeelan karo inuu isagu codkiisa iyo caqligiisa iyo kartidiisa ku dooran karo qofka uu rabo dadka hal intaan hadda hoolka ku jirta qof walba kartidiisa wuxuu tijaabin karaa waayeelnimadiisa tijaabin karaa qofnimadiisa tijaabin karaa markii bulshadu dooranayso oo bulshada oran karo waxaan ku qabanayaa waxyaalaha noocaas Dr. Timir gobolka Mudug runtii dhakhtar muhiim u ah maanta hadii la yiraahdo waxa la doorto waxa lagu dooran karaa dalku markuu burbursanaa wuxuu qabtay iyo maanta wuxuu qabanayo isagoo waqtiga jooga ayadoo gobolkii Mudug iyo magaalo madaxdii ka maarmin buu jariiban iyo dadkiisii wuxuu diyaar u yahay inuu duruufta adag oo shidaal la'aanta ah duruufta aragteen oo shidaal la'aanta ah oo gaadiid la'aanta ah oo khataraha ku gali karo oo deegaanadii ugu gudbayo dadkiina ugu gurmanayo inuu wax u qabto runtii waa arrin uu ku dadaalayo sidaas oo kale markay dhacdo waxa la kala ogaan karaa qofka noocaas iyo qofka la mid ah waxa dadku ku dooran karaan barnaamijkaas Puntland waa barnaamij ka hirgelaya hadday dhacdo caqabado jira oo barnaamijkaas la rabo in looga hortago waa qof aan naftiisa iyo awoodiisa iyo rabitaanka shacabkiisa midna ku kalsoonayn waxaan aaminsanahay muddada dawladdan madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni oo hartay inay ku hirgeli karto in aan maanta la dhaliilin 21 xubnood oo jariiban ka jirta oo ay dadka matalayaan codkooda raallina ka ahaayeen wax qaybtii iyo caana qaybtii bulshadana ay wax ku soo dooratay ay ku yimaadeen wakiilna uga yihiin 54 deegaan ay jariiban xukunto dadkeeda degan haddii ay shacabka codkooda ku imaan lahaayeen maanta way ka duwanaan lahaayeen sida hadda ay yihiin gaarana ma dhaliileen qof gaarana ma qabsadeen gudoomiye gaarana suurtagal ma ahaateen waxyaalaha hadda jira oo la sheegay in la isku dhaliilo banaanbax shacbiyadeed iyo kacdoon bulsho baa wax ka bedeli lahaa qofka markaa shaqada haya waayo wuxuu ku yimid codkiisii iyo calafkiisii iyo caqligiisii hooyo xaamilo ah hooyo walaca hooyo dhibaataysan iyo hooyo gablana baa codkiisii siisay waxayna u siisay inuu iyada matalo arrimaha gaarka inoo ah wax qaybtii iyo caana qaybtii odayaashu ka sheekeeyeen iyo waxa jiri jiray waxay ahaayeen farsamo qurux badan lagu soo caanamaalay oo dalka iyo deegaanka hadday isku tashi tahay wax lagu qabsado iyo hadday tahay taageero kale wax dadka kale haga oo wanaaga bay ahayd ayadii haddii wax ku sii socon karaana waxaan rabnaa insha Allah inaan odayaasha kala tashano waxyaalaha hadda jira oo hay'aduhu wadaan oo caqabadaha ay ka hortaagan yihiin dadka qaarkoodna waxaan rabnaa
inaan isla fahanno waxaa ka muhiimsan jiritaanka deegaanka waxa anaga maankeena ka guuxaya. Jiriban waxay soo jirtay 100 sano ka hor, waxay sii jiri doontaa intaan buunka la afufay wixii ka sokeeya. Intaa waxaa soo gaarsiiyey dadka maanta nool waxa xaq ka saaran yahay inay ayadan iyo ku mintidaan wixii lagu heshiiyeyna ilaaliyaan, wixii dadka wuxuu noqon karana la dhexgeliyo. Waxa isdiidaya ma jiraan, farsama loo baahan yahay. wixii kastoo caqabadaha insha Allah tacaala waxaan iska arki doonaa mas'uuliyiinta dadka deegaanka iyo guud ahaan degmada matala wixii jira oo khilaafana sharteeda waxaan rabnaa inaan ilaahay ka maangano, ilaahay la kaashano, odayaasha la kaashano, dadka waxgalka inoo ah hooyooyinka iyo odayaasha ugu horeeyaana aan la kaashano. waqtiga dheer iyo xilliga timaadeen iyo hooyooyinka ay qadakarintu u sugayaan dadka ardada ah oo jilicsan oo iskoolada ku maqan, waxaan rabnaa inaan dartood u soo gaabino. aad iyo aad baa u mahadsantihiin. wixii halkan hadal aan ka iri cid gaar ah ulama jeedin, inaan cid ku dhibaateeyo ma jirin. wixii wanaagayga ah oo ilaahay garansiiyay waa ilaahay thawaabkiisa, wixii khaladaadana waxaan ka codsanayaa ciddii xadgudub u aragtay in ilaahay dembigooda noo dhaafay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.